anigu maxamed siid bk waa fanaanan taageero marka waxna waan ku taageeraya waxna waan ku diidanahay arinkan muqdisho waxa isku soo beegmay qarax dhacay iyo isagoo show ku qabanaya meesha marka wuxuu hadalkiisa wadartan wuxuu leeyahay xamar iyada isu keentay qarax isu keentay haday sii daayaan Somaliland nabad bay helayaan horta waxaan ku diidanahay anigu aan marnaba ku taageersanay qarax muqdisho isu keentay bil aadanka ciidina dhima jeclay dhimasho marka waa qadar Allah waxaan u duceynaynaa in Ilaahay ka dulqaado mar walba anuu duceeya waayo xamar waa meesha ku dhashay waa meesha xundurta lagu jiray anigu xamar iyo halkan xamar iyo Somaliland ba waxaan leeyahay Somaliland iyo Soomaali labadaba ka soo jeedaan paternal family iyo maternal family labadaba ka soo jeedaan hada waa maternal family agana waa paternal family waxaan ku taageersanay BK waxa weeye runta marka laga hadlayo anigu kuba taageersani qaraxa qorsheeyada sukeetay saas uu ku soconay bariba Ilaahay wuu ka dulqaadi karaa laakiin waxaan ku taageersanay waxa weeye in hadii Somaliland la fasaxo wada loo aqoonsado in ay Somaliland nabad helayso sababta ay u helayso waa maxay sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan beelaha waqooyiga dega ama Somaliland dowladda Somaliland waa dad nabadda jecel nabad ganacsi iyo hab nabadeed wax ku dhameystay qabiilada Soomaaliya ku dagaalamaya waan hubaa oo dadku dhow ay ogyihiin in ay heshiisinayaan koonfurta heshiis laga yaqaan xabad baa lagu kala baxaa anigu waan qadno nimanka habargidira oo raabtigay wadada kale oo ay nabad ku keeni karaan waxay tahay dawladda iyo Al-Shabaab oo heshiisin lahaayeen Al-Shabaab xil bay doonaysaa xaqana dawladuna inay taliso doonaysaa Al-Shabaab inay taliso doonaysaa marka shacabku ku baabeen saasi ma laba dhinac xil bay doonayaan hadii dadku dhamaadaan ayaa loo talin ayaan dar laba dhinac mid fikri maayaan ninka farmaajo haysta ninka shaarbo weyn la farmaajo anu personal attack kuma wado laakiin wallahi wallahi waa xayawaan dadku iyagas garan way isdhaafin waayay waa xayawaan aan laga xayawaansanay aqli ma hayo siyaasad ma hayo nin hadal yaqaan ma anu ninka personal attack kuma wado laakiin nimankii ku horeeyay xasan sheekh maxamed sheekh sharaf niman farsamo keenay ahay xitaa iska balawlushay nimanka Al-Shabaab niman farsamo isaga hadal garan maayo farsamo ma wado siyaasad ma wado Somaliland bay kaga dhigtay iyo meelaha ururta iyo mardaniisa gaarka ku mashquul aan personal attack wallahi ma wado aan runta ka hadlaa inuu cidna ataago ma bajecli xal bay keeni nimanka farsamo keeni jiray xal bay keeni jiray laakiin nimanka Al-Shabaab qarxiyada waa run iyaga fuliya waxbay sheegtaan kulay kan inay sheegteen ma filayo cid saddexaadna gacan saddexaadna jirto dad iska dhiiga dadku bartay iyagu qarax sameynaya way jiraan laakiin si qoliyaas bay ku daba gabanayaan bil aadanka cid aan la fahmi karin ma jirto nimanka hadii la heshiinayo xal bal keen la dawladdu gaalay dabada ku haysta gaalada naf ma haysta dadka Soomaaliya inay baabaada la doonay aniga sharafan waxa adan ah oo aan jeclahay xaqaas oo nabadii haata xaqaan oo la fasaxo ayaa taniya oo ka heliya marka waxa weeye shacabka loo turo shacabku ha tashadaan insha Allah khayr bana wasiilahay bana nabad ka dhigay arada barwaaqeynay qodobada waxa ku leeyahay hadii aad ku cusub tahay fadlan YouTube subscribe saar siina share garee si asxaabtaada kula aragto aad iyo aad badan